video ka sameeyno qof kamid ah dadkii aan daaweynka siinay oo ku caafimaadey insha Allah asagaan noo sheegi doono sababta u qaatay iyo wixii iska bedelay markuu qaatay daawada kadib dhowr su'aal aan weydiin doonaa bukaanka oo daawada noo qaatay sida u jeedaan waan ag fadhiyaa alxamdulillah su'aasha ugu horeysa aan weydiinayno waxaa waaye maama waxaad noo sheegtaa wixii oo kugu dhacay ama aad noogu imaatay daawada u qaadato maxay ahaayeen bismillaahir rahmaanir rahiim daawada markaan aadii maanay qof iska xanuunsanaa daawada ay siideen shirkadda labada xabaa ku wareeyay shirkadda ay siiday waa ku caafimaaday waan fiicanahay ilaahay baa mahadaha ka gaarto baa ka dilxaadan wadaa ku fiici iyo mutagi iyo cunto xumadii aan ku jiro waa ka baxay oo mushaari dareeran cabi jiray hadda dareero waa ka baxay cuntada caadiga ahaan cunaa waan ku ladnaaday in aan sii wadan waa rabaa shirkadana oo hambalyeena shaqaalaha meesha jooga oo hambalyeena intii nasiida iyo intii noo tabaracday intii khayran u rajayna gabara ay keenta aniga walaashay 100% waa fiicanahay ilaahay mahada ka gaarto alxamdulillah hooyo xanuunka markaas u qaatay muxuu ahaa xanuunka u qaatay wuxuu ahaa buro iga taalo dhunta oo la yiri wadanka waxba lagaaga ma qaban karo buradaas maxaa lagu ogaaday wadanka ma lagu baaray mise banaanka wadanka lagu baaray wadanka lagu baaray saanku wixii ilaahay waxba lagaaga ma qaban karo saddex wadan oo wadanka ka baxsan waa ina aadaa si qaliin laga sameeyo Kenya Turki Malaysia hooyo buradaas ilaa meeqa kugu taalay ilaa iyo adiga jiradan 3 sano eeyay laakiin hal sano u dambeeyay xoog soo saartay lix bilood kamid ah wax saas macneen biyo iyo caano iyo mushaariya cuntadeed lahayd wax oo dareeraha waxooda maqaajir gaasna waa qaba gaaska waa ugu sii kacay hadda gaaska waa ka reestay dareeradii waa ka baxay oo cunto caadi ahaan cunaa hurdadeeda ma fiicneen waa hurdaa ilaahay baa ii gargaaray alxamdulillah ilaaha daawada haay haddeertan hooyo caafimaadkaaga see waaye haddeer caafimaadka baa ka dilixaadan wadaa waa taasaa baa ka dilixaadan wadaa 100% caafimaadka hadda waan fiicana kasii badan ilaahan ka rajeynaa insha Allah